u adeegso codkaaga wanaaga, dhagahana in ay khayrka maqlaan, gacmahana bixinta sadaqada, maskaxdana runta, jirkaaga oo dhan alla ka cabsi iyo toosnida dariiqa saxda ah. noloshu waxay ku baraysaa in aad u baahan tahay in aad go'aan qaadato waqtiga ku habboon, ma ahan goor hore mana ahan goor dambe. ka dheerow saaxiibtinimada dadka markasta kula falanqeeya dadka kale ceebahooda. noloshu mu'minka sahal ma noqoto imtixaan la'aan, imtixaankuna ma fududaado sabar la'aan, sabarkuna kaamil ma noqdo qanaaco la'aan, qanaacaduna ma dhammaystiranto ilaa kalsooni. intaas waa wadada kaliya ee aad uga guuleysan karto safarka nolosha. raggu waxay jecel yihiin in ay dumarka ka helaan 3 dabeecadood: gabar dhowrsan misna asturan, gabar afgaaban weliba xishood badan, gabar leh dhaqan wanaagsan iyo dabeecad degan. dumarkuna waxay ka siman yihiin ragga in ay ka helaan 3 dabeecadood: nin naxariis badan misna uga taxadira sida gabadha uu isaga dhalay oo kale, nin dulqaad badan oo haddii la isqabto noqda kii u sabra xaaskiisa, nin xushmad badan oo xaaskiisa u qadariya sida hooyadiisa oo kale. nin xakiim ah ayaa la weydiiyey, maxaa ugu qurux badan wixii aad aragtay? waxa uu ku jawaabay, ma arag wax ka qurux badan qof arkaya ceebahayga oo haddana i jecel welina igu kalsoon. aadanaha haddii xagga jeebka laga maro wuu isgiijiyaa oo is adkeeyaa. qofka aad rabto qalbigiisa in aad furato, in badan ha isku dayin jeebkiisana inaad furato. luqmaan alxakiim oo ahaa nin aad u xikmad badan ayaa nin uu u shaqayn jiray ka codsaday in uu neef ari ah u gowraco, kadibna xubinta jirkiisa ugu wanaagsan u dubo. amarkii ayuu qaatay, waxa uu u dubay carabkii, ninkiina wuu cunay. maalin labaad ayuu ka codsaday in neef kale gowraco, xubinta liidatana u dubo, kadib wuxuu u dubay isla carabkii. ninkii ayaa ku wareeray oo weydiiyey sababta uu labada jeerba ugu dubay carabka. waxa uu ku jawaabay, carabku waa mindi 2 af leh, haddii aad wanaagga u adeegsatid waa xubinta ugu wanaagsan jirka ee janno kugu hogaamin karta, haddii aad xumaanta u adeegsatana waa xubinta ugu xun ee naar kugu hogaamin karta. dumarku waxay jecel yihiin in la daneeyo oo weliba si cad loogu sheego in la jecel yahay. haddaba ha ka gaabsan u sheegashada jaceylka xaaskaaga. haddii aad ka gaabisid sheegashada jaceylkaaga, waxa aad dhisaysaa teedh qalafsanaan ah oo adiga iyo oorida idinkala dhex dhigma. xiisihii gawaabsi ayuu noqon. sunnada nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxay la mid tahay doonidii nabi nuux calayhi salaam. qof kasta oo raaca wuu badbaadi, kii kasta ee ka degana wuu qarqoomi. ha oran waqti ugu filan ma haysto, waayo dhammaan dadkii dunidan wax ku soo kordhaya maalintooda waxay ahayd 24 saac kamay badnayn. adduunka ma jiro ciidan hoos u dhigi kara qofka aasaday in uu sare u kaco. nafta aadanaha silsilado laguma hayn karo. hadalyaqaan caan ah ayaa dhagaystayaal madadaalinayay, wuxuu yidhi, sanadihii iigu wanaagsanaa nolosheyda waxaan ku soo qaatay gacmaha haweeney aan xaaskayga ahayn. dhagaystayaashii aamus iyo yaab ayaa ka soo haray. qaarkood afka ay gacanta saareen. wuxuu ku sii daray, haweeneydaas waa hooyaday.